guud ahaan daawatada kubadda cagta adduunka gaar ahaan dadka reer Portugal ayaa aad uga xumaaday kadib markii uu kabiirka xulka qaranka Portugal Cristiano Ronaldo uu ka maqnaaday duugtii saaxiibkii Diogo Jota oo sidoo kale u safan jiray kooxda Liverpool oo dhawaantan shil gaari kula geeriyooday walaalkii waqooyiga dalkaas Spain. ilkeed imika waxaa soo baxaysa sabab la yaab leh oo uu Ronaldo u doortay inaanu duugta tagin. Aan waliba la sheegay inuu wacay xaaska uu ka geeriyooday Jota ee Ruud Cardoso iyo qoyska laacibka oo uu taageero u muujiyay. Isagoo isla mar ahaantaana qoyska u sheegay inaanu ka soo qayb gali doonin duugta wiilashooda Jota iyo walaalkii Andres Silva si aanu duugta isugu bedelin buu yiri carwo saxaafadeed waxa uu ku tilmaamay media circus. Dadka ayaana mowqifka ku kala qaybsamay waayo qaarkood ayaa qaba in arrintaas ay macquul tahay maadaama dareenkii duugtu uu u jeesan lahaa Ronaldo halka qaar kalena ay soo jeediyeen inaan waxyaabaha yaryarka ah macna gaar u yeelin ay ugu wanaagsanayd inuu sawirka weyn eego si kastaba. Waxaana tusaale loo soo qaatay sida uu David Beckham uga qayb galay duugtii macalinkiisa hore ee reer Sweden ee Göran Eriksson. dadkan ayaa sidoo kale haysta qeyl juqraafi ah waayo Ronaldo kama fogeyn halka ay duugtu ka dhacaysay oo waxa uu imika ku sugan yahay dalkaas Spain. si kastaba waxaa duugta Jota iyo walaalkii ee ka dhacday magaalada yar ee Gondomar ee u dhow magaalada kale ee Porto ee waqooyiga dalkaasi Portugal ka soo qayb galay xidigo ka tirsan kooxdiisii Liverpool iyo qaar ka tirsan xulka qaranka Portugal. 40 jirkan ugu safashada badan xulka Portugal isla markaana ah aabaha 5 caruur ah oo aan hooyooyinkood la arkeen uu ku dalxiisayay jasiiradda Mallorca isagoo ku jooga doonida tamashlaha ee qaaliga ah ee ku fadhisa ku dhawaad 60 milyan ee geni isla markaana dherkeedu gaarayo ilaa 88 cagood ee Azimut Grande Yacht oo ay naqshadayaan Talyaanigu taas wax kala daaya musqulaha qubayska ee ku yaala oo qori ay dhan yihiin ilaa 6 musqulood. dhanka kale qawaarka kubadda u qabta kooxda Bayern Munich ee Manuel Neuer ayaa weerar ku qaaday dhigiisa Gianluigi Donnarumma oo sabab u noqday dhaawac horor ah oo gaaray laacibka soo baxaya ee Jamal Musiala oo isku la dhaceen koobka adduunka kooxaha oo ay PSG 2-0 ku badisay. kooxda Luis Enrique ayaana sida waxa ay tigidhkeeda uga jaratay dhamaadka kadib markii ay 2 gool ugu qaarameen Desiree Doué iyo Ousmane Dembele. waase kulankan ku qabsoomay Atlanta Georgia ee dalkaas Mareykanka aad u hareeyay dhaawaca laacibka Musiala iyo sidoo kale shilal kale oo ciyaarta ka dhacay. tii kooxda Faransiiska ah lagu soo koobay 9 nin markii ay roosa qaateen William Bancho iyo Lucas Hernandez daqiiqadii 82 iyo 92 sida ay u kala horeeyaan. haddaba sida dhaawacan u dhacay kubad qurxiyaha reer Jarman ayaa kubadda ciirsanayay halka qabtaha reer Talyaanina uu doonayay inuu gacanta ku dhigo deeto lugta Musiala ayaa waxa ay dhex gashay meel u dhaxaysa jirka iyo gacanta Donnarumma tiyo daafada iyo xoogga labada nin ee labada jiha kala aadayna ay culayskii iyo canaabtii oo dhan dul saartay lugta laacibka yar taasoo keentay inay ka jabto shashada dheer iyo lafta yar ee shashada ku dhareeran waxa loo yaqaano tibia and fibula. iyadoo sida uu sheegay helinka Sky Sports Germany la filayo in laacibkani uu garoomada seego muddo u dhaxaysa 4 ilaa 5 bilood. aan muuqaaladu muujinayeen lugta laacibka oo xagal aan caadi ahayn u jeesatay kadib markii ay wareegtay. waxaana la arkayay Donnarumma oo jilba inta dhulka dhigtay ooyin la dhacay. yalkeeda waxaan arrinta ka iibsanin qabtaha dhigiisa ah kooxda Bayern ee Manuel Neuer oo farta ku goday in Donnarumma uu dhaawaca ugu talagalay laacibka oo uu arrinta u bareeray balse imika uu doonayo inuu ku dhuunto ooyin yaxaas oo haddii uu doono uu sii dayn kari lahaa lugta laacibka. waxaanu laacibkan reer Jarman ee way aragihii u sheegay Sky Sports Germany waxay ahayd xaalad aysan ahayn inaad sidaas oo kale u soo baxdo waayo waa khatar qaadasho. diyaar buu soo ahaa aqbalitaanka khatartaas ahayd inuu dhaawaco laacibka ka soo horjeeday. maxamed xaaji hadal Sam TV.